kula wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhabka hadal taariikhdu waa 22 bisha December ee sanada 2021 jaamac galad ayaa ila jooga waxaynu eegi doonaa mustaqbalka Tigreega iyo dagaalka ka socda Ethiopia ma noqon doona mid xal nabadeed lagu soo dabaalo ugu dambeyn maadaama Tigreega isaga baxeen dhulka canfarta iyo axmaarada isla markaasina ay ku laabteen gobolkooda mise waxa uu noqon doonaa in mar kale lagu baacsado gudaha Tigreega oo ay buuraha jeedaan arintaasi ayaynu bal 10 daqiiqo soo socda eegi doonaa isla markaasina aynu falanqeyn doonaa jaac soo dhow way nimankii hadda ma aha war waxaan sheegayno waa maxaa dhici kara waxaan u baahanahay Tigreegi gudaha gobolkooda ay galeen shalay waxay sheegeen afayeenka u hadlay in ciidamada dawladdu 3 jiho oo dhinaca Jifra iyo Alamata iyo Humeyraba maartay laga soo kubaareynayo oo laga soo galayo isla markaasi maxay noqon doontaa xaaladdan mustaqbalka dagaalkan waqooyiga Ethiopia ka socda wuxuu noqon doonaa mid la isu yimaado oo wada hadal la gala maadaama labada dhinacba jilceen mise wuxuu noqon doonaa maadaama Tigreega hadda ay jilicsan yihiin in lagu sii wado boorihii maaragtay la geliyo bismillaahir rahmaanir rahiim markale waa salaam iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba horta marka la fiiriyo xaaladda dalka Ethiopia waa xaalad waxaan ku yiraahdaa wadadii loo jeexay oo aad moodo inay ku socotay aan ku talagalka ahayn Ethiopia xoogag baa ku dagaalamaya hoose oo markii hadda Tigreega waxaad moodaa culays badan inuu na lahayn laakiin waa la isku maaragtay madax iyo maaragtay minja qabanaya niman axmaaro iyo oromo la yiraahdo ya hadda Ethiopia isku haysta Ethiopia axmaaro iyo oromo ya ku dagaalamayso oromo waxay rabtaa Ethiopia inay ku ekaato xuduudeeda ama xuduudda Tigreega inaan la dhaafin oo askari Ethiopian ka gudbin axmaaro oo milkiyad iyadu aaminsan waxay leedahay waa in nimankan gabi ahaanba la tirtiro oo la maaragtay la soo aan qof dambe oo Tigre not ma aha yani TPLF ma aha qof dambe oo Tigre ah oo han iyo hawale waa in la arag maadaama marka fursadii hadda ay muuqato waa in siday tahay looga faa'iideysto Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Ali laba qolo ku dhex wareeray marka axmaaro iyo oromo ku dhex wareeray jahawareerkii amaarada iyo oromada dhexdooda uu ka qaaday ayaa dhanna u diiday weerar hadduu qaado oo hadda la yiraahdo dib maqalaha loo tago waxa weeyaan waa arrin halisteeda xambaarsan Tigreegu marnaba isma dhiibayaan magaalooyinkana ku dhex dareeremayaan sidoodiba waxay fuuli buuraha inta gasha gudaha deegaanka Tigreegana hal mid dib uga noqon mayo ayaa ciidan ah Ethiopia iyagana waxay rabaanba in loo soo galo oo inta mar boqol loo galay kuwan hadda iyagu bad qabay soo baxeen Tigreegu soo ki diyaaradu nagta ka dhigeen waa run wax badan laakiin sidii la rabay khasaaruhu uma gaadhin Soomaaliya garan yaani boqolkiiba 20 yaa la dhihi karaa way ka dhimatay yaani ciidankii meesha galay iyo gaadiidkii meesha galay boqolkiiba 20 badiba adigu boqolkiiba 50 kala badh in maartay meesha lagaga soo tagay kala badhkii kale iyo bulshadii Tigreega iyo kuwii tababarku u socday oo wada jooga ciidankani markuu gudahii Tigreega galo sidoodii un baa albaabada ka istaagay hal askari dib u soo noqon maayo dabadeedna 20 kun oo dabada laga kaxaynayo un baa yaa sidoo la soo sawiri Abiy Ahmed taasa u muuqata axmaarana waxa u muuqata wixii gaaray fursadan sidii maalinkii hore waa in looga faa'iideystaa oo waliba si ka daran looga faa'iideysto oo la isku dayo in magaalooyinka iyo deegaamada dad iyo dunyaba in la burburiyo oo ninkii buurta ka soo dega meel u imaado uu waayo leeyahay dhow magaalooyinka ku soo hudoobayeen oo imaadeen marka xaaladda Ethiopia waxa weeyaan aqli wanaagsan baa ka shaqeynaya si fiican buu u shaqeynaya ilaa ay hadda aqligu waliba labada aqli marka la fiiriyana ka axmaarada fiican oo saxan oo ah nimankan in laga daba tago la baabi'iyo ka axmaarada in la baabi'iyo nimanka oo aan laga harin ma Tigreeg oo dhanba maxaa u kala reebaan adigu hadda ma Tigreeg aan TPLF baa jira kii adduunka ilaahay kii ugu nacbaa TPLF ya xabsiyada ku jira TPLF maya wuxuu xiran yahay Abiy هذا TPLF هم بيحرين ما Tigreeg هم بيحرين yahay qof kasta oo Tigreeg waa TPLF marka aqligan ayaa wuxuu yahay aqli aad u wanaagsan
macquul ah la fahmi karo la qaadan karo kan oromadu laakiin wax shaqeynaya uma eka oromadu maxay rabaan iyagu oromadu waxay rabaan iyagu in maxaan ku idhaahdaa to nimankan waa maamul ka tirsan maamulada Ethiopia sidii oromadu deegaankeeda ay ugu madax banaan tahay inay iyaguna kooda ugu madax banaanaadaan wixii iyaga iyo dawladda dhexe ka dhaxeeyana wada hadal lagu dhameeyo oo dagaalkan iyo balaayadan la soo afjaro soo lama dhigaro way fiican tahay la soo afjaro ma fiicna tan axmarada fiican in badan taxmarada marka waxa artay la sii maraysto ma tan axmarada fiican iyagu haday dagaalka door bidayaan iyaga horta darisa dadna iyaga isugu xiga hadii iyaga marka ay isdilayaan oo aqligoodii siiyay inuu isdilo anna waa taageeraynaa cid kasto dhahda isdaayana way adab daran tahay way waasa marka oroma waxaan leeyahay abi waa la wareeriyay waa la waalay abi oo kaasa abi axmaari ormo ku dhaxwaashay xaqiiqda marka laga hadlay wax ka suuroobayaba ma jiraan badbaadada Ethiopia waxay ku jirtaa in Tigray la dhameeyo taa inuu qaato yaa laga rabaa isaga on qof dambe oo Tigray oo socdo la arkin وهدي الرود إثيوبيا بدبادة أو أحمارة أسرائيسو أو أحمارة أي ملكيات كتهاي أو يدو أي مدح كتهاي هدي للدون يو وإن من كاتكري على سو أفشرو قرشها يو استراتيجية أحمارة دنا إن لقاته ويان نما كان لدم يو واحد كودانتو استراتيجية أحمارة يو قرشها أحمارة يسرين أحمارة هدان الربين محل لما بدي كربا كوي دي وكوا الرماني دي kuwii diiday inta waa kuwa la dhamaynayo xaradu waxay rabtaa milkiyad iyo mas'uuliyad oo iyada maaragtay to sida ay aaminsan yihiin fuqudus yaa la yiraahdaa oo maaragtay wakiishay yani khalifatul ard inay yihiin oo iyagu dhulkan ay ilaahay wakiil uga yihiin iyo aaminsan yihiin meel ilaahay wakiil uga dhigtay iyagana ma garanayo oromana la yiri waxba kama tihidin marka intooda loo yeelo anu waxay ku dhaanto ima muuqato mar walba cidna ma yeelaysay taabi ma yeelay tooda waati wala yeelo lagu khasban yahay oo ra'iisul wasaaruhu waxa weeye warta waabtiyaashi waa inuu ixtiraamo marna waa seediyaashi marna waa abtiyaashi seedinaha waa seedi waa beer astan su'aaro ma shoo ma yahay seedi meel waxa abtina meel xun laga raacbaa leeyahay hadii seedina waa beer baa leeyahay marka seediga iyo abtigu ciyaar ma aha bilaash looma weerarin Tigray marka waxa weeye haddana toodii un baa soconaysa maxaa iyaga marka Tigrayga inay wax iska celiyaan haday wax iska celiyaan waxa u baxan iyaga taa iyaga u taala laakiin qaabkay wax iska celin karaan iyaga fiiri waxa weeye waxa adkana ama ku cunay ama ku ciiday weeye horta dab yar ma shidayaan nabad laguma joogayo Ethiopia intay joogaan أحمر أطلسه أو محمد ولا فشلي وحنا المقطع أبرها وحوها يعني مسلم أما سكر يعني مركب مارت غف الميجي شوقي ضد كنا مقطع يو أنت بدن واحد أوفر سن مركب إسلام كيشري أما دينتي حق أهيد مركب شرتي وهاي هاي تي كريستن كأهيد بأهيد كريستن كنا يعني مركب لقاها الله ديمها إلهي يسود شيورن وهو مسلم دين الإسلام هاي بيشرت marka waxa aan ma fahmay inaan ay u dhaxgalay dad baa shalay xayirahay marka ay kuwi oo ahaa maxaan ku ahaayto mushrikiin bay ahaayeen kuwi nabiyullaahi maxamed uu ka dhashay xilliga ayaga kan oo marka diintii xaq ahayd ee jirtay haystayna waa la baabi'iyay yani dadku waxaad moodaa xoogaa وكاسا marka waxaan leenahay waxa muhiimada waxay tahay hadii aad xitaa si qalad u fahanteen diintii xaq ahayd markaa jirtay inay ahayd tii midda kristanka ah ama muslim ahaata ama kristan ahaata arinta diimaha horta xaq iga dhig aniga kama hadlay diinta waan naqaanaa alxamdulillah rabbil alamin diinta islaamka naqaanaa nagu diin kristan ma naqaanaa ma tii xilligaas aan ka hadlayaa ana feeri waxaad ii sheegtaa nimankan hadda Tigrayga iyaga maxaa ka suuragal ah hadii ma abi haduu qolada labada qolo ku dhax wareero iyagu way is og yihiin iyaga wanaaguma yaala Ethiopia birta laga aslaaya okay macquul ma tahay in waan nabadeed la helo oo labada dhinac ay ku gabadha ra'iisul wasaaraha afayeenkiisa ah shalay ka hadashay waxay tiri ma ogeey tiraan waxaas in ay ka soo qayb gali doonaan shirka qaran iyo in kale iyo in waan waxaan aad ka sheekaynaysaan waxba kama ogeey tiraan bad hay gelinina siiru dawlaha arrimaha dibadda Ridwan Hussein
oo maxaan ku ahaa qoomiyada oromada ka soo jeeda isna darhad hadlo wuxuu yiri waa in qoryaha dhigaan kabaha afka ku soo qaadaan buu tigraw ha haday rabaan shirkada ka soo qayb galaan kuwii dambiilayaasha ahana iska soo hormariyaan man tigraw dambiila ahayn baa jira dambiil dambiyada waa kala labo kii wixii 4 Agost ahaana waa wixii ka dambi 4 Agost ka bilowdayna waa gooni wixii 4 Agost 4 November baan ka wadaa wixii ka horeeyay 2020giina waa lagu wada jiraa oo Ridwaan Xuseen iyo yaa qayb ka noqonaya marka waxaan wixii ka dambeeyay Tigreega u gaar yihiin iyo qolada dagaalamaysa waka laba qol iyaga isku dambaabahaya laakiin hadii laga hadlayo dunuubti dalka laga galay EBRDF oo dhan baa la soo safay ورمان بحسنين أحمران بحسنين تكريبان بحسنين وحن بحسنين نكون كلام بدمدو وحاصل ما ولا سقوط راعن هي مركو حسلا واحد ولا هذا ما يتوب قاب يكون شيء كرت ما بتشير تبدي وكافي قالوا ولا بمركي ما لقى بحدود إلا كلا حد مركو قالوا ولا بمالن كأي تكرون تهاي عقل جاذو مش شقيه وحكي هذا شاب مال كله ماشي أفكار كهذا اللي هاين كم هذا لان أفكار مال كله كهذا marka qolo walba maalinka ay tugtug roon tahay waa inay ka hadasho docda waa mahadsan tahay Tigreegu maalinka inuu markay dhasiya qabsadeen Soomaaliya dhigeen wada hadalkii albaabadii waa xidmeen oo wax wada hadalku haba yaraatay la galahay ma jiro Soomaaliya kuwan macadariishadii baa ka xidmay dariishadii baa xitaa ka xidmay kuwan axmaarada iyo qoladan BB oo dhan dariishadii neefta xitaa waa xidmeen qof kasto Tigreeg waa in soo qabto marka qolo walba maalinka inta yarta ay haysato midaha albaabada baa xidmay iyo midaha darashadii baa xidmay intaas annagana intaasaan rabnaaba intaan rabnaa wax darashada furmin meeshaas lagu wada maartay tinaarka lagu wada jiro ama girgiraha lagu wada jiro in girgiraha la wada saaro waa maasan tahay jaamac galada iyo kaasi كل دولة أحسن كسر هذا برامج كنا حاجات دونيدا يا كسر قد بنو وربحنا هذا الصومالي ده يحقق عالم كا الدجلة ستا برامج كنا وحكسر قد بندونا إثيوبيا أو قبطي هبكي وقبضنا يلعق حد ضعفها أو كواحد تبلف لقو تاجري يدلك العق تاني يتاجره أي كتمي يعقبضها حساب إثيوبيا سوقيا دجالك أكدك تبلف يحقق كله iyo nidiisoo gudbi doonaa hay'adda sardoonka iyo nabad sugidda qaranka ee dalka Itoobiya ee loo soo gaabiyo NISS ayaa shaaca ka qaaday inay xidheen ugu yaraantii 164 qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyo lagu taageerayo kooxda TPLF oo Itoobiya ay ugu yeedho koox argagixisa 5.8 kilogram oo dahab ah iyo lacago adag oo damo badan ka yimi ay qabatay Itoobiya sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen shirkadaha warbaahinta ee dalka Itoobiya oo soo xiganaya hay'adda sardoonka ee dalka Itoobiya 12 kamid ah tuhmayaasha oo la xidhiidhinayo isku daygan lagu doonayay in 5.8 kilogram oo dahab ah looga dhoofiyo garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee Bool ayaa la qabtay sidoo kale Itoobiya ayaa sheegtay inay qabatay lacag adag oo lagu duubay hilib shiidan oo ka yimi wadamo badan oo reer galbeedka ah waxaana Itoobiya ay shaacisay in lacagtani 34,000 oo pound ay ka timi dalka Britain halka 27,000 oo euro ay ka timi wadamada Yurub halka 6,200 ay ka timi Faransiiska iyo 209,000 oo ka timi dalka Mareykanka iyo 400,000 oo ka timi dalka Canada Itoobiya ayaa sheegtay in lacagtani ay ku qabatay garoonka diyaaradaha ee Bool hay'adaha sardoonka ee dalka Itoobiya ee loo soo gaabiyo NISS waxay ku andacoonaysaa in dhaqaalahani loogu talagalay in lagu maalgeliyo unugyada TPLF iyo OLA intaa waxaa dheer kastamyada ee dalka Itoobiya ayaa mar kale waxay sheegeen inay qabteen qalab kale oo isugu jira dahab iyo qalabka militariga Itoobiya ayaa sheegtay in 13 qalab oo GPS ah iyo 9 raadiye ee satellite-ka ah iyo 5 telefoon oo dayax gacmeed ah iyo muraayadaha ee indhaha ayaa lagu qabtay customka Bool kuwaas oo la doonayay in si qarsoodi ah lagu geliyo Itoobiya intaa waxaa dheer Itoobiya ayaa sheegtay inay qabatay dhar badani oo ay ku xardhan yihiin astaanta TPLF
iyo OLF oo laga soo diray adeega boostada ee dalka Itoobiya waxaana Itoobiya ay sheegtay in sidoo kale ay qabatay 13 qof oo lala xidhiidhinayo alaabooyinkani oo loogu talagalay inay adeegsadaan taageerayaasha ee TPLF iyo OLA arrintani ayaa timi markii Itoobiya ay ku dhawaaqday in jab xoogani kooxda TPLF ay kala kulmeen gobolka Amxaarada iyo Canfarta oo guud ahaan ay isaga baxeen haddaba miyuu dhammaaday dagaalkii dalka Itoobiya dagaalka sokeeyaha ee Itoobiya ee aadka u kacsanaa iyo siyaasadda juqraafiyadeed ee webiga Niil ayaa si soo taraysa u soo jiidanaya quwadaha waaweyn ee gobolka siyaalo laga yaabo inay wiiqaan mowqifka Mareykanka iyo reer galbeedka ee bariga dhexe iyo geeska Afrika Itoobiya ayaa hore u soo nuugtay soo noolaynta saamaynta Ruushka iyo Jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha in saamayn ay ku yeeshaan mariga badda cas iyo kanaalka Suez dowladda Itoobiya ayaa toddobaadkii 2 Diseembar 2021 waxay si dhab u rogtay jihada dagaalka sokeeyaha ee ka bilowday dalka Itoobiya sanadkii hore ee kula jirtay kooxda TPLF laakiin dagaalku ma dhammaan TPLFna waxay weli haysataa awood dhaqaale iyo taageero shisheeye oo ay heli karto khasaaraha ka dhashay dowladda iyo dadka shacabka ah ayaa u muuqda inuu sii kordhayo xilli kooxda TPLF ay isku dayeyso in dagaalkeeda ay dib ugu guurto dhulka buuraleyda ah ee gobolka Amxaarada iyo Tigreega ilaa caasimadda Tigreega ee Maqale si kasta ha ahaatee su-aasha hortaalla xukuumadda Addis Ababa ayaa ah sida mustaqbalka ay dib ugu soo ceshan karto kalsoonida qowmiyadda Tigreega oo qiimo badan ay ku bixiyay taageerada TPLF dagaalka lagula jiro dowladda inkastoo TPLF ay ahayd tii ugu awoodda badnayd dalka Itoobiya waxay bilowday dagaal goon u goosada si Tigreega ay uga goyso dalka Itoobiya waxaa intaa dheer marka loo eego caburinta foosha xun ee kooxda TPLF ay ku hayso dadka aan Tigreega ahayn muddadii rubuc qarniga ahayd ee gacanta ay ku haysay dalka Itoobiya ilaa laga gaadhay 2018 sidoo kale dowladda Itoobiya waxay wajahaysaa caqabadaha dib u dhiska qaybaha dalka Itoobiya ee ay burburiyeen dagaalka ay kula jirtay kooxda TPLF iyo xulufadeeda sanadkii la soo dhaafay tani waa inay samayso dowladda iyadoo wax dhaqdhaqaaqa iyo taageero ka helin reer galbeedka si ay u bixiyaan gargaarka dib u dhiska ee dhabta ah ololaha dowladda Itoobiya ee ka dhanka ah TPLF iyo iska fogeynta reer galbeedka ayaa ka tagtay xiise yar dib u dhiska Itoobiya oo ay hayaan wadamada reer galbeedka marka waxaa cad in xukuumadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali ay u baahan doonto inay ka fadhiisato hababka cusub ee dib loogu dhisayo fikradda Itoobiya oo midaysan sanadaha soo socda tani waa haddii Itoobiya ay doonayso inay dib soo noolayso maalgashiga tooska ah ee shisheeyaha xaaladda ka taagan dalka Itoobiya oo la mid ah tii markii dargigu uu xukunka ka qabsaday 1974 mid ka mid ah farqiga ugu muhiimsan ee dagaaladii ugu dambeeyay ayaa ah in ugu dambeyntii ay dowladda Itoobiya awood u siisay shucuubta Amxaarada iyo Canfarta inay la dagaalamaan kooxda TPLF iyadoo gobolladani horey loogu diiday fursadaha hore ay ku dhisan lahaayeen maleeshiyaad goboleed ilaa heerka ay gaadheen kooxda TPLF maleeshiyaadka Oromada iyo taageerayaasha dowladda ee Amxaarada iyo Canfarta ee iska caabinta ee ka dhanka TPLF ayaa soo saaray kumanaan beeraley ah oo iskood u hubaysan oo ku hubaysan qoryaha AK-47 qaar kale oo badanna waxay wataan qoryo waaweyn oo qarnigii 20aad laga furtay bakhaarada dowladda xukuumadda Itoobiya ayaa iyaduna ugu dambeyntii ku guuleysatay inay adeegsato diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ee loo yaqaano UZAVs oo ay ka heshay Turkiga Iiraan iyo Imaaraadka Carabta si ay ugu garaacdo cutubyada makaaniga ah iyo kuwa gaashaaman ee kooxda TPLF kooxda TPLF waxay samaysatay xidhiidho kooxaha kale ee ka soo horjeeda dowladda sida kooxda OLF ee Oromada taas oo hadda la mid ah cadowga kooxda TPLF ee dowladda waxay u muuqataa hadda mid aan macquul ahayn marka loo eego isu dheelitirka ciidamada ee dowladda iyo kooxaha hubaysan in mar kale ay awoodaan in mawjado dagaal ay ku soo qaadaan dowladda mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee u rogaya dagaalka ballaadhan mar kale inuu ka qarxo dalka Itoobiya ayaa ah taageerada ay ka helayaan kooxahani
dalalka shisheeyaha. si kastaba waxaa suurtagala in hakad laga dareemo dagaalka dowladdu ay ku doonayso in gebi ahaan meesha looga saaro kooxda TPLF marka ugu dambeyntii ciidamada TPLF laga saaray gobollada Amxaarada iyo Cafarta. mowqifka hadda ee ciidamada federaalka iyo kuwa Amxaaradu ay ka qabaan TPLF iyo waxaa si weyn u dhiirigeliyey damicii dabiiciga ahaa ee Amxaarada ee ahaa in dalka ay ka saaraan awoodda ee kooxda xukuma Tigreega. waxaa laga yaabaa in Amxaaradu ay ku soconayso rabitaankooda in kooxda TPLF guud ahaan laga saaro gobolka Tigreega. Diseembar 18 2021 ciidamada Itoobiya waxay si buuxda ay uga sifeeyeen kooxda TPLF aagga waqooyiga ee Wollo ee gobolka Amxaarada iyagoo la wareegay caasimadda istiraatiijiga ahayd ee Waldiya iyo ugu yaraantii dhowr iyo 10 magaalo oo kale oo istiraatiiji ah. laakiin wejiga xiga ee dagaalku waxay u badan tahay inuu noqdo mid adag. awoodda hawada ee dowladdu waxay noqon doontaa furaha diyaaradaha droniska ah halka kooxda TPLF ay isku dayayaan inay furaan dagaallo kale. dhinaca kale waxaa jira sababo Masar ay u sii wado inay isku daydo inay kala goyso Itoobiya oo taageero ay siiso kooxda TPLF. waxayna Qaahira isku dayday muddo qarniyo ah, laakiin caqabadda ugu weyn ee Itoobiya ayaa kala fogaanshaha reer galbeedka iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya. natiijada saafiga ah Mareykanka waxaa laga yaabaa in dhabarka uu jeediyo dowladda Itoobiya oo taageersan inay soo jiidato xiriirka Moscow, Beijing, Tehran iyo Ankara oo asal ahaan ay u dhiibtay saameynta Mareykanka ee gobolka. siyaasadda cusub ee maamulka Joe Biden ee Mareykanka iyo xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayay Itoobiya ku eedeysay inay halis gelisay sabab la'aan xidhiidhkeedii sababtoo ah taageerada kooxda TPLF iyo inay isku dayayso inay ga'doomiso oo ay afkambiso xukuumadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. tani waxay damaanad qaadi lahayd kala go'a Itoobiya waxaana ay sababi lahayd xoojinta awoodda Masar ee isku xidhka ganacsiga ee badda cas iyo Suways. intaa waxaa dheer xaqiiqada ah in Imaaraadka Carabta ay Itoobiya ka caawinayso dhanka military iyadoo diidan qaabka Mareykanku uu maray qorshaha uu Imaaraadka Carabta kaga iibinayay diyaaradaha dagaalka ee F-35 oo ay ka baxday Imaaraadka Carabta kadib shuruudo adag oo ku xidhay. Israa'iil waxay sidoo kale hadda ka shaqaynaysaa sidii gacan ay uga geysan lahayd kor u qaadista mowqifka dowladda Itoobiya inkastoo cadaadis diblomaasiyadeed ay kala kulmayso wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo xulufo la ah oo ay ku jiraan Talyaaniga, Faransiiska iyo dalka Britain si ay u ga'doomiyaan xukuumadda Abiy Ahmed. Mareykanku xitaa wuxuu taageeray isku dayga in xarunta midowda Afrika laga raro Addis Ababa loona raro Qaahira, laakiin taasi waxay si buuxda uga soo horjeestay inta badan dowladaha Afrika. muhiimad gaar ah jimcihii Diseembar 17 2021 isku dayga Mareykanka uu riixayay inuu ku qasbo qaramada midoobay baaritaan xuquuqda aadanaha ee dagaalka sokeeye ee Itoobiya wuxuu si cad u diiday dhammaan isku dayada ee diidmada dowladaha Afrika ee ka hor yimaadeen iyo Ruushka iyo Hindiya dhammaantood oo taageeray doodda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ee ahayd in arrintani ay tahay arrin gudaha. dhaga kale mudaharaadyo istaba jooga oo la taaban karo oo ka dhacay Yurub, Ameerika iyo Australia iyo qurbajoogta Itoobiyaanka ah waxay wadooyinka isugu soo baxeen si ay uga dalbadaan Mareykanka in Itoobiya ay kaligeed ay xalisato dhibaatada